maxamed xaaji axmed oo magacyadiisa afgarashadu yihiin daahir cadaawe xudayfe iyo ilka case saalim saciid maxamed oo magaciisa afgarashadu yahay salmaan axmed maxamed haashim oo magacyadiisa afgarashadu yihiin carab iyo xirsi faadumo xuseen cali cadaawe oo magacyadeeda afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosobo waa afarta eedaysane ee goobjooga u ah eedda loo haysto halka 5 kale oo isku eed yihiin afarta eedaysane oo maqanayaal ah ay ka socoto dacwadooda hoolka dacwad qaadista maxkamadda ciidamada qalabka sida aniga waa kamid ah laakiin aqeed ahaan kama mid ahayn qasab awgiisa aan ururkan ugu biray midkoodna ma diidana kamid ahaanshiyaha al-shabaab laakiin maxamed xaaji waa maskaxda kooxda dhinac fadhida ma ahan kuwan kaliya waxa uu hagid iyo dilwadareed la fuliyay kuwa la geeyay fagaaraha cadaaladda iskool booliisiya kuwa sugaya fulinta xukunno ay mareen iyo kuwa la doondoonayo oo ay hayaan xogtooda hay'adaha amniga sida booliiska iyo sirdoonka shaxdan ay soo diyaariyeen hay'adaha baarista ayuu inoo sharaxayaa gaashaan muumin xuseen cabdullaahi ku xigeenka xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waxaa laga qabtay degmada wadajir area mataqaanaa meeshaan la yiraahdo Saybiano iyagoo dil raba gabar ka tirsan ergadii soo xulshay baarlamaanka hadda shaqeeya gabadhaas oo ka badbaada dilkooda saddexdan shakhsi markii la qabtay waa tilmaanta ugu fiican ee lagu aqoonsaday eedaysanaha koobaad dadka laga helay saddexdan shakhsi waxay tilmaameen ay sheegeen in uu amiir u yahay ayna ka saayaan ninka la yiraahdo ilkaas shucayb oo xukunsanaha hadda dil ku xukuman ayuu tuhunkeenu saarnay una haysanay inta badan inuu yahay ninkii ilkaas iyo daahir magaca isku darsamay ee tilmaamaha laga soo bixiyay ee aan raadinayn waxaan aaminay inuu yahay shucayb markii la wareystay carab wax laga weydiiyay inuu ninka ilkaas yahay wuxuu dhahay carab ilkaas ma taqaana daahir uu sheegay ninkan wuxuu dhahay daahir waa jira laakiin carab ayaa lagu fakaday carab wuxuu dhahay ilkaas daahir uu iska bedelay wuxuuna la baxay ilkaas uma dhigma dadka uu dilay ee dalkan iyo dadkan waxtarka u lahaa sida marxuum Ekisareeyo Guuto xooga dalka Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Qurux oo la dilay 24kii bishii 9 2017 marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ah ku xigeenkii xeelaliyaha guud ee qaranka oo isna la dilay 20kii bishii 2 2019 marxuum Ekisareeyo Guuto booliis Maxamuud Xaaji Cali oo la dilay 27kii bishii 4 2019 dhammaan waxa uu qayb ka ahaa dilalka ku xusaneediisa waxa uu isku haystaa weli sargaal muhiim ah oo ay u dhutin doonto maleeshiyadii uu ka tirsanaa admin waxaan ku wadaana maamulan ahaa nin wax dilay iyo xaashaysan ma horta shabaab nin galaaba ewel baa dhorsaneen meesha caanaboor lagu meesha ma lagu qaybay dad nin shabaab waxbuu soo dilay urur jabhadaysan wax laayo qof walba soo galan waxa ogtiin inuu wax soo geystay carab tuurida bamgacmeedka iyo kamid ahaanshiyaha al-shabaab ayuu ogol yahay laakiin waxa uu iska dafirayaa dilka marxuum Umar Maxamed Abikar taariikhdu markii ay 10kii bishii 8 2016 iyo inuu ka qayb qaatay dil uu eedaysanaha koowaad u geystay adeerkii soo koriyay marxuum Ekisareeyo Guuto booliis Ismaaciil Axmed Cismaan Markiyeelo 28kii bishii 10 2016 Saalim waa madaxa gaadiidka fudud sida mootooyinka iyo bixinta biilasha maleeshiyada uu ka bixin jiray akoonkiisa gaarka ah uu diidan yahay kabtan marxuum Cabduqaadir Daahir Diiriye oo ka tirsanaa asluubta inuu ka qayb qaatay dilkiisa 16kii bishii 1 2018 Faadumo Korneel ayay u yaqaanaan kooxdan waxa ay haysatay fursad ka duwan eedeysanayaasha kale waa xubin ka mid ah hooyooyinka qaranka waana mid ka mid ah kun dhalinyaro ah oo ay dawladda hoose fursad shaqo u siisay in dalka ay ugu adeegaan farsamadeeda gaarka ah waa istusida kuwa wax dila iyo wiilka ama gabadha la qorsheeyay in nolosha loo aqoonsado ee ka tirsan weelka dawladnimada xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay eedeysanaha koowaad waxa uu ahaa wax lagu qiyaaso miqyaas lagu qiyaaso halbeeg ma laha dambiyada jariimooyinka ummadda uu ka galay ma jiro waa dilaa arxan dalan waxaa nasiib darro ah hadda ka hor inta la soo qabtay aabbihii oo sarkaal booliiska uu damiintay ma daayeen aabbihiis xataa kabar buu u ah hadhowdii islaam markii lagu qabto ku damiinanaya xataa aabbihii ma daayeen waayo waxa uu dilay
kii soo koriyey gacantii quudinaysay buu dilay ismaaciil janaal ismaaciil wuxuu ahaa kii soo koriyey marka oo gurigiisa uu ku noolaa gacantiisu ku dila sababta uu dilayna waa hal arrin ramadaan baa lagu jiray tiruu tirsanayay dadka uu dilaayo uu ku xisaabtamayay ma ahan insaan caadiga qof lagu tilmaami karo dad buu tirsanaya uu tirada uu dadka dilaayo tiradii baa ka dhimanaatay waxay gaarsiisay inuu dilo adeerkii isaga soo koriyey aabbihiina ma daayeen laakiin wuxuu u daynayay inuu u ahaado kabar uu ku gabado markii la xiro oo soo daaya waxaa intaas ka daran meel uu dad ku dhaafayo ma lahayn diin uu caabudayo ma jirin masjidka dhexdiisuu ku dilaayay kii masaajid ka soo baxo bannaan ku tugaayo waxaan codsanaynaa in ciqaabta u qolanta lagu xukumo oo dil toogasha qareennada u doodaya eedeysanayaasha ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u dhiganta inta ay fadhiga maxkamadda ka hor caddeeyeen waxa ay sidoo kale weydiisteen garsoorayaasha inaan loo ciqaabin eedda ay soo diyaariyeen hay-adaha baarista iyo xafiiska xeerlaaninta ciidamada qalabka sida maxkamadda qodobkaas ayagu ogol yihiin u fiiriso ayadoo u fiirinaysa qodobka 40 heerka ciqaabta farqidiisa koowaad harafka raac oo tilmaamaya waxyaabaha dembiga fududaynaya sharmaarke cumar axmed xuseen oo magacyadiisa afgarashadu yihiin ugaaska iyo ganey axmed faarax iidle oo magacyadiisa afgarashadu yihiin shuuriya iyo madoobe nuunow cabdiraxmaan mustafa cabdulaahi oo magaciisa afgarashadu yahay mooryaanka ramadaan cabdiraxiin mursal oo magaciisa afgarashadu yahay saalax iyo cabdinaasir axmed cabduqaadir oo magaciisa afgarashadu yahay carabi ayaa iyaga oo maqanaah dacwadooda la dhageystay mid kasta iyagoo maqanayaashan ka mid ah waxa uu leeyahay halistiisa gaarka ah waxaase looga fadhiyaa hay-adaha amniga in ay ka gutaan waajibaadkooda kadib go'aanka maxkamadda gaashaanla sare xasan cali nuur shuuti gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda dhagaysiga garmaqalka la xiriira 4 eedeysane ee maxkamadda hortaagan iyo 5 eedeysane oo maqanaha ah intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta wabillahi tawfiiq cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho